waxaa magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar soo gaaray wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta ee maamulka Puntland Saalax Xabiib Jaamac waxaana kulan soo dhaweyn u qabtay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Puntland muhiim weyn bay noo tahay inaad noo timaadid waxaanu jecelahay inaanu dalka iyo waxa ka jira aanu la soconno maadaama uu dalkayga yahay dadka hawsha noo haya oo habeen iyo maalin u soo jeedana inaanu la kulanno aad iyo aad baan u jecelahay waxaanu haynaa quluub fiican dad isjecel isku xiran walaalo ah qadiyadda dalkooda iyo diintooda ay midaysay aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay horumarka fiican oo dawladda aad ka tirsan tahay ay qabatay runtii wax lagu farxo oo la bogaadiyo weeye wasiirka oo kulanka ka hadlaya ayaa ka warbixiyay guud ahaan xaaladda ka jirta deegaanadii iyo waxyaabaha ay qabato wasaaraddiisa farxad khaas bay tahay in la qaybsado runtii waqtigan ay aan soo maray in la is arko dadka bulshada nafteeda la wargeliyo muxuu ahaa waan ognahay dadka dibadda markay joogaan dhagta isaga wada taagan oo nafteeda war maxaa meesha ka jira marka qofkii imaada marka war ka duwan wixii meelaha la qoraya ama haya horta ayada nafteeda iska jirta marka oo ku faraxsanahay martiqaadkan sharaftaan iyo ciisigan ilaahay sharfaan leenahay idinka jirsi idinkana muxuu ahaa idinkoo bari kolba maalin shaqo idin tahay oo dareemaya marka alxamdulillah dalka runtii xaaladiisa iyo siyaasaddiisa waxyaalo badan isbedel badan baa jira mar walba runtii hor u socod badan baa jiro gayga Puntland runtii ahaan horumar badan waa ka socdaa siyaasadda Soomaaliya dhinac u kala socdaa dhan walbo aniga hadaan ka hadlo waxaan qaabilsanahay wasaaradda iska baaxad weyn way dhanka cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta waxay yiraahdaan marka cadaaladda dadka xoog khalad bay u fahmaan oo maxkamadda inay hoos imaataa loo maleeyaa maxkamadda wasaaradda cadaaladda ma hoos imaato dastuur ahaan Puntland waxay u samaysan tahay 3 golo way golaha shacabka oo baarlamaanka ah golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka marka maxkamaddu waa ka madax bannaan tahay golaha xukuumadda laakiin maxaan marka cadaaladda la qabtaa marka waxaan la qabtaa in la tababaro maxaa xukaamta la tababaro muxuu ahaa la hormariyo arrimahooda horumarintooda iyo dhanka muxuu ahaa siyaasadda inaan ku matalo marka maadaama ayaga siyaasiyiin ahayn laakiin aan fadhiyo golihii aan kala shaqeynayo sharci sameynta iyo muxuu xeerarka la sameynayana wasaaradda la marsiinay inay tahay arrimahaas ay ka shaqeyso maadaama arrinta diintana ay muxuu ahaa aan qaabilsanahay culimada inaan si dhow la shaqeeyo arrimaha diinta aan ka shaqeeyo wixii xeer loo sameynayaan aan xaqiijin in arrimaha diinta aysan ka hor imaanin iyo shariicada islaamka taana waxay ku caddahay dastuurka Puntland qodob kamid oo sheegaya wixii ka hor imaanaya shariicada islaamka inaysan sharci ahayn marka dhanka muxuu ahaa dhaqan celintu waa xabsiyada weeye muxuu ahaa oo aan la shaqeyno hoos imaada wasaaradda ilaa 4 xabsi oo weyn baa dalka ku yaalo ku kala yaala Garowe Boosaaso Gaalkacyo Qardho kuwa hadda shaqeeya waa 4 sayto marka taqriiban u dhaxayso inta badana maxaabiista soo marto 800 700 500 marba muxuu ahaa say tahay xilliga ugu badneed waxay dagaalkii shabaab marka la galnay March sanadkii hore oo ilaa 100 hal mar soo wada qaban ugu xirnay cadad ugu badneed marka adiga dadka waxay u dhaxeeyaan qof wax dilay qof wax xaday qof muxuu ahaa wax kufsaday qof waalidkii soo xiran dhaqan xumo isaga soo xiran dhaqan celis ay dhahaan leeyihiin hana loo hayo kan waa kari waanay marka waa kari waa iyo inuu naga tahriibaan ka baqaynaayo rag qaarkood naftu waxaa hayna waa weyn oo reerkooda dhaqan waay kan baluud baa ka kari weynay odayaalta saacay soo qabtaan marka dhawal baad arkaysaa marka waxaad dareemaysaa xoogaho dhankii dhaqanka weli uu shaqeynaa marka qaarkood odayaashaas xil qaamaan kala kari waay meel lagu soo hagaajiyo la heli karo laakiin muxuu ahaa xukuumadda wax badan bay runtii qabatay ha ahaadaan dhismooyin fara badan ee soo kordhisay muxuu ahaa kabayaal dhaqaale ee soo kordhisay laakiin waxaan dhaqsi wax ma dhalayaan haddaan laga shaqaysiin waana waxyaalaha hadda aan ku duro diaspora daa'ima adinka su'aalo badan weydiisaan dadka dibadaha joogay wadan goorma maalgashanaysaan eelaboor la dhisay diyaarado u baahan diyaaradaha imaamay diyaaradaha ma keensataan weli marka marti waxa loo yahay diyaarado kale meel kale ka boodayo wixii badan marka waxyaalaha sababay inay weli hagaagin ayadoo eelaboor caalami fiican leedahay inaysan weli hagaagin muxuu ahaa roodkii la marayay ayaa sababay soo taana runtii waxaan qabaa insha Allah qolba laga bixi doona dadaalkii socdo aan gaar maalmo qayb baa la gaaraa
kii garowaatiyadii la furay gaalkacaysa la bilaabay dhawaan dhismihiisa marka waa waxyaalo soo kordha waa loo baahan yahay runtii dakhliga kor u qaadayaan kolbaad olol waxaa jira Soomaaliya in la sidoo loo soo celinay Elboras isticmaalaysa in la soo celinayo muxuu ahaa barnaamijka hawada qayb ka badan la soo wareejiyay inta kala sanadka inta ka dhiman la meestiri doono taana qayb runtii ka noqon doonto wax qabadkan baashi laga maamulan jiray muxuu ahaa Ekao iyo Montreal iyo Nairobi laga maamuli jiray in dhaqaalaha wadan ku soo noqdo marka waana jirtaa isbedel runtii badan xukuumadan han badan baa laga qabaa muxuu ahaa cusub federaalka han badan marka si guud ahaan han badan waa jira caalamkan uu soo wada fiirinaya maanta Soomaaliya wiligeed waa la hunguriyeynayay haddana waa ka sii daran tahay wixii interest far badan baa jiro interest groupkan aad buu badan yahay laakiin waxa loo baahan yahay aqliga iyo maskaxda ka imaato ummadda Soomaaliyeed hadee taan garan waano muxuu ahaa kuma guuleysanin inaan soo celino runtii horumarkii iyo dadaalka marka maskaxda aqliga haduu shaqeeyo wax badan baa noo shaqeynayo runtii dadka ayaga isku kalsoonaa wax badan ay sameystaan wax badan ay ka imaato laakiin dalkii maalgashi u baahan yahay oo la iman kara Puntland runtii maanta meesha ugu amni badan نعم iska jiraan xogo imtixaanaad yar sida shabaab buuraha ku saaran daacash buuro kala saaran laakiin waa wax laga guuleysan karo iska dhamaanayo oo iska soo afjarmi doonaan oo hadda sababtoo ah meel badan baa laga soo afjaraya dagaalkii meel badan buu pressure-ka uga socdaa waa soo wiiqanayaan intaas maalin dad baa koox baa soo dhiibeysan yar markay ku daalaan buuraha iseen waayaan waxa waaye nolosha lagu ma noolaan karo marba in baa soo dhuumato warmaangaliyahana la siiyo wax walbana sheegaynaa wixii laga rabo marka taana way jirtaa marka runtii waxyaalahaas fara badan way jirtaa